بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنت كذب الله سبحانه وتعالى ما هذا سكله وعشر كنا أسبوعي بأمر أنسود جرني ما أنت مركو حكوسة بسنة هاي عشر كنا إن أسكه وتصالينه أن استوسنه عدة ما تقانا يمضون تهي إن أنقرب سنو أنقرب سينو أن حكسنو إيجر إن حكسدان يعدة يمضون تهي إن لقى فوقاده أنا أنقرب للسين وحاول يادق نات كفوقاته والدين تهذا إيو عبادة كلا فوقاته أرد مركا حتى صوب بالله آذنهن waxay ku dhasheen fitra islaamnimo ay ku dhasheen waxay ku dhasheen diinta nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyay xaniifiyada oo shirki la'aanta bay ku dhasheen ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adooma loo noqdo bay ku dhasheen inta kadib waxa soo galay kufri baa soo galay adoomada ilaahay subhanahu wa ta'ala islaamnimada ilaahay uu ku abuuray qadiyadda ahayd waxa soo galay arinta kufriga ku soo kordhantay ardu markay wax ku bilowdeen ayadoo adoomada Allah hal xisbi yihiin oo ilaahay kaliya caawdaan waxna ay la wadaajinay baa waxa ka soo dhaafay ibliisna kufriga wuxuu ku bilaabay diido amarka ilaahay uu diiday buu ku bilaabay oo Allah subhanahu wa ta'ala markuu yiri usjudu li aadama halkaas uu kaga bilowday marka آدم هلو سجود مركو الله سبحانه وتعالى يري وحال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون بري الله سبحانه وتعالى ملائكة دوا سجودا إلا إبليس أرى واستكبر وكان من الكافرين مركو كفر أصل عن الكاسو كبر الله الإباء والاستكبار بو كبر الله ديد ما أمرك إلهي للديدو ولا جسن تاجو بو كبر الله هل كان مركو اللي تاجيه وحب الله دلبا حسبي وعداود ما أنت بالله إلا يومنا هذا إلى ما لا تاجنت waxa dhamaanayna ma ah ilaa qiyaam saaca dadkii marka waxay noqdeen waxa weeyaan laba xisbi baa halka ka bilowday ibliis oo xisbi samaystay asaga adeecsan oo taageersan oo qorshihiisa ku shaqeeyo iyo kuwa rasuul ilaahay raacsan oo rasuul ilaahay loo soo diray oo qorshihii Allah subhanahu wa ta'ala ka yimid ee rasuul ilaahay ay wadeen ku shaqeynay marka arintu markuu waa sida halkaas ay ka timid marka labadan qaybood dhaxdooda meel la istaagayo ma jirto meel lagu hergalo ama lagu nasto ama lagu gamco male inaad xisbi ibliis noqoto iyo inaad xisbi ilaahay ahaato meel ka dhaxayso oo waxa weeyaan nolol ay ku jirto oo lagu nasanayo ma jirto way ama waxa weeye qasaarad dooranaysa oo xisbi ibliis aad raacaysa ama waxaad noqonaysaa qof muslim oo xisbulaahi baad noqonaysaa kuwa isku day in laba dhaxda ka quraabtan ka shaqeystaan waxa la yiraahdaa ayaga naarta ugu hooseeyo meesha uu liidan bay iga degan yihiin Allah subhanahu wa ta'ala marka wuxuu nagu dhiirigeliyay dadka ilaahay amarkiisa dhinaca ka maray inaan taageerin garab u noqon xigsan ahalna ka dhigan marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walan tarda anka yahuudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahuudi nasaradu raali ka noqon mayaan ilaa aad diintooda raacdo oo aad mataqaanaa ayagu u muujiso inaad garab iyo gaashaan u tahay sida bay kaaga raali noqonayaan waayahay ogaadaan inaad diintaada ka tagtay bayna garab ku siinayaan ee loogama yaabo yahuudi inay biil ku siiso ama nasara aad ka hesho gargaar ama dacmi ciidan ha noqdo ama mid shacbi ha noqdo ama gargaar abaara la isaga gargaaraya ha ahaadee waxa weeyaan inay garab ku siiyaan loogama yaabo ilaa ay ogaadaan inaad adiga diintaadii nacday oo aad diintaadii ka daciiftay oo diintaada isaga tagtay markay ogaadaan kadib baad garab ka helaysaa sidaas oo kale waxaa la mid ah mushrikiinta kuwa Allah qeyrkii caabudo oo qubuuraha dul tuuran ayagana garab iyo kaalmo iyo xigtinimo ka heli maysid ilaa aad qirto oo aad raali ka noqoto in mataqaanaa dimuqraadiyadooda iyo qubuurahooda iyo xeerbeegtooda xaq yihiin ilaa taad qirto ayagana ka yeeli maayaan inay mataqaan raali ka noqdaan marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay yahuudi iyo nasaarada sidaas oo kale mushrikiintana waa la mid ah
inayna nabiga ilaahay raalli ka noqonayn ilaa uu diintooda raaco oo inay xaq ku dul sugan yihiin uu qiro. muxuuse allah ku jawaabay? allah subxaana watacaala wuxuu ku jawaabay qul waxaa tiraa rasuul allow ina hudallaahi hanuunka allah huwa alhudaa saa hanuunkii ah kan lagu badbaadaya asaga weye. walaa in itabacta ahwaa'ahum haddaad raacda sida ay u jecel yihiin bacda aladii jaa'aka min alcilmi markuu cilmigu kuu yimid kadib maa laka min allaahi allah xaggii kaagama ahaanin min weliyin walaa nasiirin mid ku xiga iyo mid kuu gargaara midna heli maysid weye. oo waxa weeye gargaar ma ka helaysid. marka arrinta inaan fahamno u baahanaa waxay tahay soomaalida waa ka maahmaahantan oo kale waxay yidhahdeen daris walbe diintiisu kuu yeela. bimacnaa jaar kasta waxa weeyaan wuxuu asaga diin u leeyahay ba odna kaa dhigaya. ma garatay? marka haddii gaalada iyaga loo yeerto oo gargaar la weydiisto oo hadday abaar dhacdo hadday xilligii barwaaqadana loo calaacalo oo la yidhahdo daad baa nala tagay, xilligii mataqaanaa jilaalkii abaarta u taagnaana loo calaacalo la yidhahdo abaar baa nalays oo leedahay gargaarkiinaan u baahannahay. sow ma aha islaamkii marka la sheeganayo af iyo been noqon maayo. sababtoo nimankan gargaar ma keenaan $1 oo ayaga leeyihiin bilaa macno kuma baxo. $1 ayaga ay leeyihiin bilaa macno ku bixi maayo. dad ay ogaadeen inay diintooda ka daciifeen oo ayaga ay daba ordayaan oo ay waxbarashadii u doonanayaan oo ay gargaarka ka rabaan oo ay u tahriibayaan dad ay ogaadeen inay diin ahaan u baaba'een bay dhaqaalo ku bixinayaan. marka taas waa inaad ogaataa. haddaad aragto cid gaalata ay taageerayso oo garab ordayso dhaqaale ku bixinayso leedahay loo gargaaro waa cid ay meel ku ogaadeen inay diintoodii ka daciifeen oo ka dhaqaaqeen. sidaas oo kale allah subxaana watacaala wuxuu yidhi walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan ama af ha idinkula dagaalamaan ama dhaqaalaha idinkula dagaalamaan ama fikir iyo caqiidaha idinkula dagaalamaan jaha walbaba ha idinkala dagaalamaan. oo qaabka dadka loo baabi'iyo waxa weeyaan dagaalka xabadda la ridayo waxaa ka dara fikirka iyo dhaqaalaha lagugu bixinayo baa ka dara. kaasaa ka khatar badan. kaa qofkii si qabooban baa loo dilayaa laakiinse kan xabadda kugu ridayo waxa weeyaan bareer buu kuu dilayaa. xataa yarduukum can diinikum ilaa diintiina idinka celiyaan oo diintiinni ay dib idinkaga celiyaan in istataacu hadday awoodaan. waman yartadid qofkii ka noqdo oo ka ridoobo oo minkum idinka mid ee muslimiinta can diinihi ka ridoobo oo fayumad dhinta wahuwa kaafiran fayamud dhinta wahuwa kaafirun asagoo gaal ah fa ulaa'ika kuwaas xabidad waxaa hoobatay acmaaluhum acmaashoodii fi dunya walaakhira aakhiri adduunyaba acmaalkoodii waa hoobteen libaan adduunya mid aakhira midna heli maayo. wa ulaa'ika kuwaas asxaabu naari waa asxaabta naarta hum fiihaa khaaliduun waana ku waarayaan. kana waa mashhad kale ama muuqaal kale oo qur-aanku ina tusinayo. qur-aanku wuxuu ina tusinayaa dadka aad khayrka ka raadinaysaan oo aad leedihiin abaartay nooga gargaaraan waxayna taraan aad oranaysaan in hadafka ugu fog iyo yoolka ay leeyihiin ayba tahay inay diinta kaa saaraan ama dagaal ha kaaga saareen ama dhaqaale ha kaaga saareen ama fikir qaldan ay kusoo geliyeen ha kaaga saaraan sida kuwa meelaha la taagtaagan calmaaniyadda iyo wax lamid ah ama dacmi ha siiyeena caqiidooyinka qaldan oo diinta lagu baabi'inayo. halkaa marka qur-aanku tusaalaha buu ina siinayaa oo xayiga oo nool. say ku dhici kartaa marka in la isku haysto diintii nebi maxamed iyo gaaladii jacaylkeedii? ma dhici kartaa taas? maya ma dhici karto. sow ma habboon marka inaan dib isugu noqonno oo aan iska fiirino waxaan sheeganayno iyo waxay tahay diinta nebi maxamed. arrin ay habboon tahay sow maaha. hase yeeshee hadday tii rabbi kuu timaado meel laga soo noqdo ma leedahay mase waxa weye gambaleelkii baa kugu dhacay oo waxa weeyaan hawsha waa lagu kala tagay waa dhabaatay. marka waxay ila habboon tahay oo wanaagga ku jiraa maadaama la arkayo wadciga maanta lagu nool yahay oo dadka dhaqaale ahaanna loo qabsaday fikir ahaanna loo baabi'iyey diintoodiina moogta waxa weeyaan lagu diray oo lagu talagalay in lagu horkeeno iyadoo loo isticmaalayo diintii lafteedii. waxaa jira nidaam ay isticmaalaan yahuudda oo la yidhaahdaa hadmu diin biismi diin. diintii in la dumiyo laakiinse maxaa lagu duminayaa? ayadaa la isku duminayaa magaceedii baa lagu duminayaa. dad magaceedii sitaan lagu soo dirayaa kuwaasaa ku baabi'inayo. marka maadaama khatarta intaan leeg ay maanta jirto oo wax bannaanka yaallana ay tahay
soo uma habboona marka inaan eegno waxa inoo dana inaan fiirino waxa aan ku dhaqmayno iyo waxa aan samaynayno iyo waxa lagu qowlayo iyo inay iswaafaqayaan diinta Nabi Maxamed in laga fiirsado soo uma habboona adoon cidi marti ugu ahayn diintaada adoo hadhow ilaahay kaligaa hortagayo adoo ilaahay kaligaa kula xisaabtami doono qabrigana malaa'ig ilaahay lagugu soo diri doono ku wareysanayso oo waxa weeyaan shacab iyo wadaad iyo madax cid adigu damiinkaa noqon kartana ayay jirin waxaa habboon marka inaad dib isaga fiiriso waxa adigaada diinka dhiganayso marka wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay gaalada inaynan ka suulayn inay la dagaalamayaan dadka allah rumeeyey haddayba awood u helaan in diintooda ka celiyaanna ay isku dayaan inay ka celiyaan maca daalika ilaahay subxaana wa tacaala nooma ruqsaynin waa naga xoog badan yihiin oo quwad awood military bay leeyihiin ha la taageero ha la adeeco ha la dhegeysto ilaahay raalli noogama noqonayo oo nebi maxamed baaba laga xoog badnaa mararka qaarkood oo lagu eryan jiray magaalada Maka asagana looma ruqsayn inuu gaalada adeeco oo maqlo oo dhegeysto haddaad marka nebi maxamed raacsan tahay waxa weeyaan kuma banaana marka inaad kuwa cabsi aad ka baqaysa awgood diintaada ugu tagto sidaas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri laa yattakhidul mu'minuuna dadka ilaahay rumeeyay kama yeelan karaan weeyaan laa yattakhidul mu'minuuna al-kaafiriina awliya dadka mu'miniinta ah kama yeelan karaan al-kaafiriina awliya kama dhigan karaan weeyaan ama yay ka yeelan weeyaan laa yattakhid yay ka yeelan المؤمنون ذاتك إلهي رمي الكافرين أولياء حكتي هي كذا ساسوي معناها سكار مركا أن من دون المؤمنين تكلا كسوك ذات كدولانا وحوي الدين تالي وشرفت هذه يضلك هذه يقطالة هذه يعد الدوري ينكو بابيه وحوي هداد قعمها يمدها الله لا تسطو waxa xaqiiqa ah in adoon laga dhiganayo waxaan rajaynayaa hadda ka hor ninkii la oran jiray Cabdullaahi Dawdaan baa wuxuu ka sheekeynayay nimankii reer galbeedka ama dhow adigu taqriiban waa waayihii hore aad buu la yaabay toddobaatameeyadii iyo wixii ka dambeeyay markaas hadaladiisa waxa ka mid ahayd wuxuu yidhi nimankan hadda saa loo daba ordayo yiri waxa dhow inay yiraahdaan berrito cayaalka iyaga inay yiraahdaan aabahay warshadeeda ku sabaysa waa dhaysaaba in la yiraahdo inankaadi marka lagu baabiyo war adigu aabahay warshadiisii baa ku soo saartay marka waxa weeyaan dulinimo lama qaato oo diintaada duli laguma iibsado marka Allah subhanahu wa ta'ala markuu wuxuu yiri man yaf'al dhalika qofkii sidaas sameeyay falaysa min Allah fi shay Allah xaqi waxba kama aha markaas abaar lagu furay colaad lagu furay gaajo lagu furay burbur la geliyay isla maca dhalika sida dadka u madax adkaadeen oo diinta Ilaahay ugu fogaadeen ayagoo dhibaatada ay hayso oran maayo war dhibaatada waa caasinimadii iyo Ilaahay aan ka jeedsaneen u soo noqono loogama yaabo alla ka jeednimadii bay waxa weeyaan baaba lagu sii durka lagu sii ordayaa gaalada baaba loo sii carray loo qaylinaya marka Allah subhanahu wa ta'ala illa anta taquu minhum tuqaabu inaad cabqadaan mooyaan tanna waxa laga hadlayaa waxa la yiraahdaa waa tuqiyada waa nooc sharciga kamid ah oo mararka qaarkoodna ay dhici karto in qofka muslimka ay qabsato marba waxa laga yaabaa qofka muslimka inuu joogo dal gaalo ay maamusho oo qaalib ka tahay gaaladaasna ay tahay mid haday ogaadaan hore ka dilaya sida daraadeed inuu u muujiyo shucuur ah inuu raacsan yahay laba diidan oo waxa la yiraahdaa taqiyatu bil qawl way waa munaafka weeya qalbiga maaha cadaawadi nacaybkeed u qabtay waa in qalbiga ku joogtaa iimaankina qalbigaada ku xasiliya oo Abi Darda hadalkiisa kamid ah wuxuu yiri inna la nakshiru في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم هذا أساس الرجال يعني لقوا رنكان وحول ضد بان أقص اللامي وقلوبتي أنا ولا عنا ذيس مركا تاس مركا وحوي يعني قفك قبضتها من كل أي بناتها الخصوص ومن باب الإكراه يوحي لك سيجلسا مركا الله سبحانه وتعالى أكتسي وتكد اللوبيسا وحنا وحبا أهين بعد نغنيسا قف كان عدة مركا أساق أرعه بقول لجار ياهي ولا درس ياهي ولا سعود النبي عليه الصلاة والسلام حديث متواتر بوحوش المرء مع من أحب قف وحول لجر عدو جعليه
cidda uu jecel yahay buu la jiraa. Hadda ka hor nin baa ka sheekeynaya wuxuu yidhi qolo tuulo baadiyo joogo baa waxaa ku baxay wadaaddo dabeed balse wax ugu sheegaan. Marka wadaadadii intii dadka wax u sheegayna waxaa timid hay-ad mataqaana wax bixinaysa. Guri jeegad bay wadaadadii ku soo xiran dusha kaga handaraabeen. Wadaadadii ma bixi karaan halkii bay ku handaraabeen. Markii hay-addii wixii ay rabeen ay ka qaateen ay hay-addii tagtay baa handaraabkii laga furay wadaadadii. Markii soo baxeen waxaa war xaaladdu waa saad noo gasheen. Markaas ay waxay wadaaddo raalli ahaado oo waxa weeyaan hay-addii Kirishtaanka timid ee gaalada ahayd. Hadda idin arki lahaayeen bariis nama siiyeen. Waxa weey saa daraadeed meesha idin kugu xabisnay. Waata dadka marka waa ka mushkiladaas dadka haysato. Waa la ogyahay nimankan in diin Ilaahay jecleen idad diimeed midna toona inay jecleen aad baa loo dareensay yahay. Laakiin Soomaaliya dhaga adeeg meel laguma gaaro dhaga adeeg bay rabaan inay ku socdaan ay ku noolaadaan. Marka dariskaada diintiisu ku yeelay war waa sabin aakhir baa la marayaa wax walba isla dumayaan oo baa la iskula socdaa qof Ilaahay badbaadismo mooyaan nin walba diintiisa ilaashado. Dadkii waxa weeye wadaaday helaan kufriga u xayeysiinaya oo dastuurka gaalada sameysay u xayeysiinayo oo diin la'aanta u xayeysiinayo oo diintii waxa weeye kaaba badiyo oo kaaba yaqaano oo shubahaadka iyo balaayada dadka ay ku wareerinayaan hadla yaabay mid baa dhageysanaya saaka hadlayo oo wuxuu ku leeyahay dastuurka 100% waa ku qanacsanay diintu waa faqsan waa garweey yahay kutubadiisa waxa weeye gaari ma qaado adigu marka kaas dad ku dayato oo wadaadada aan u bixiyay bariis haybiye bariis u bay raadinayaan diintooda waa bariiska halka ay bariiska ka helaan maanta la jiraan nabigana kaleey salaatu salaam waa sheegay bisbin aakhirka in qofku waxa weeyaan yusbihu rajul muslimin oo yumsi kaafiran qofku waa asoo muslim waa bariisanaya gaalnimo waa mataqaana gabalku u dhacaya ama asoo muslim buu gabalku u dhacaya asoo gaal bugaagu u bariya sababta nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku fasiray diintiisa wuxuu ku iibinayaa bari adduunyo marka xilliga diinta adduunyada lagu iibinayo sabin aakhirku nabiga sheegay la joogaa wadaad marka masaajidka qayliya isku halayne runtu waxa weeyaan gaala jacaylkeed gaala laga wariyeesho gaala gargaar la weydiistay diinta Nabi Maxamed isla galimayaan wadaad si walba kugu warabo wax walba ha sheego xaq waa xaqa siisu ahaanaya ilaa yawm qiyaamatina xaq buu ahaanaya baadil buu ahaanaya ilaa yawm qiyaam magarat marka yaan lagu habsaamin waxa aan ilaahay xaqiisa dhawaadan xujo uga heli doonin calaalna xaq ilaahay wax kaaga tiri maayo haddaad nooshahay xurriyad baad haysataa fursadaada iska lumin iska ilaali waxa weeye wixii adiga diintaada iyo aakhiradaada iyo dadnimadaada duminay bilaa tawfiiq